baba kitu baba sidahu tibanya. Somebody singing to my wife like that, yeah? Oh my god! So that's why magaca lagu bixiyay Mufasa libaax ay heesti ma xasuustaa no tibanya baba kitu baba sidahu tibanya. That's what we call lion Kina dana daawanin other soo daawo miska waxa noo saaran libaax magaciigu leeyahay horta Guled aba Simba libaax du saaraya maroodina dhinac kale u saaraya brother. Who is the strongest? libaax Who is the strongest libaax iyo maroodi? I will say libaax. That's your opinion. My opinion. Yeah, fikirkaagu waay. Laakiin even saqiirka og. So miisku waxay noo saaran libaax iyo maroodi. That means Guled Simba iyo Suldan Seeraar. They are really good. maroodi waa baxsan fiiha. Brother, no giraffe bixi. Giraffe. See. laba fanan oo aad iyo talent oo ma sha Allah maalmaha dambana hawadaas ku jiro hawadaas saro ya waxaad moodaa inay satellite-ka oo NASA ay raacay NASA ma taqaan satellite-ka Mareykanka inay dhinac kaga dhigayna moodaa cirkaas ku sii socdaan ba that is really good thing to balaakin aan waxaan kula tali lahay adeeryal fankiiso xasan samatar idin kugu soo dhiibay meeshii la taagantiin still ayagana waxay sugayaan fankiin la sii hormariyo waxa uu jeedaa meeshii la taagantiin Soomaaliyeed fanka wuxuu qiimo ku leeyahay aroosyada iyo xafladaha bas nothing else arkimaysid fanaan Soomaaliya show weyn dhiganayo oo la dhahay intaas kun oo ajaanib iyo international isugu imaanayo eedina community looga yeero fanaankaas oo community Soomaaliyeed oo ka socda la dhahay ma ahane opportunity ahaanta suuq yimaada laakiin fanaan show dhigana kaligiis so sina waa dhigi karnaa fanaaniinteena anaga hoos u dhigno shacab marka timaado shacabka kaliya waxay ugu camiraan Snapchat Instagram Facebook YouTube copy paste waxa arkaysa fanaanka million in daawata laga yaab Snapchat ka daawata bawans kam tada xaflad ama show oo dhiganayane adar boqol qof haday timaada alxamdulillah way taasna tii shacabka sabab u ah fanaankana waxa dhibaatadiisa ay tahay marka uu attention yar helo tii waxa moodaa Chris Brown inuu noqdo international inuu u gudbay other you still local try to level down fanaanin badan aqaano ah hebel dhayn laakiin the way they behave iyo level bismillah Ferrari inay saarina moodaa inta other waxa ka baqayna accident ina laga Ferrari-ga saarantahay by the way beautiful people that was just ska you know asatale iyo kaftan iyo wixii weesh ku jira waxa ka fahmaysa adika idinta ala balaki ma beautiful people as you can see Mufasa dhinaciga jooga Mufasa kalena on the screen Guled Simba see the giraffe is right there my brother Suldan Seeraar so as you already know barnaamijku waxa waa comparison waaye so waa Suldan Seeraar iyo Simba you guys already know waxa ka soo kala qaadanay labadooda hees ugu dambeysay waxaan focus ku saaraynaa labada hees Keba shidan. So I hope you guys are ready. Are you Guled? Are you ready? Yes, I'm ready to tune in. So we're gonna be starting with the Suldan Seeraar. So barnaamijku wuxuu soconaa ilaa 5 ron xisaabtana korkaas aad kala soconaysiin upstairs. But before intaan guda galin, don't forget to subscribe and don't forget to follow his Instagram right here and mine right here. Codayntii iyo fikirkana xaqiina way commentiga hoos inoogu soo qoro. So it's going to be a round 1 Suldan Seeraar. Waan sii soconaynaa. Let's go. irko dhudub biyo dhiga dhalku horay dhulka hawdka dhir caleen leh ubaxna siman dhalaalay dharabtif leh roob la dhacay dhul siraaday dhayo dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra I love it so let's go to the Simba yo mando man anfacoygeeyadu awgeeyadu karlo qiray gabadha aslublo dabcigeedu waa gaari kar hoyaabale hele waya hey madness what do you think brother yes it yeah if I start with Guled not me but him fantastic start you know happiness this happiness is spreading out he's in Aros He's a rose, but it's spreading happiness, you know. I love it because that moment is a happiness moment. And is an important moment, is a beautiful moment. Yeah, I will give my points to Guled Simba. Yeah. So, in my opinion,
aniga I will give to Suldan Seeraar because Suldan Seeraar labada is sort is two different thing. Suldan Seeraar erayada uu isticmaala is a heavy word. Eraya aad u culus way qofka markuu fanaanka yahay waxa ku tusaysaa in asiga ay ka gadan tahay erayadu soo uu isticmaalayo with the beat, with the music and everything, the movement. للعلن وبحنا سيمان دلالي داربتفله روبلا داعي دول سيرادي دايو دوكسي دوغا شداي قديقا نحذي دورا. That's what makes the song so beautiful. Yeah, yes. 1-1. Let's go to the next part. Dumna dilan deletiran dahla soo haydheero jogla midab dheere dol cadantay dakasisa lay dhaqaaday dol cad wah let's go to the Guled Simba then. Let's go. afaweegeedu aweegeedu gaari loo qiray gabadha asluub loo dabcigeedu waa gaari gar hoyaabale hele waya timaada Suldan Seeraar broda the high tones ka laga gadayo the high tones ka codkii iyo erayada lagu isticmaalayo ka bacdi lagu keenayo dol cadantay dakasisa lay dhaqaaday dola cadinta la I don't understand. One thing is this is made in studio. The one thing. The other thing is made in Aros, It's not the same It's thing. not Aros, brother. The video is in the Aros, but like The video is in Aros, No. codka waxaa lagu soo duubaa in a studio or somewhere else. Kadib codka la saaraa. Fanaanka marka uu la imaanayo ama Aroska heestii u dhiibana as MP3 ahaan u dhiibanaya. Videoga marka loo saarayo qofkii video u diray MP3 ahaan ugu diraya. That's what I mean. Laakiin that doesn't wax ma ka bedelayso. heesti waaye. Codkii waaye. Arosa ma lagu duubo videoga ama lagu duubo musqul is the same thing, brother. But I can say maybe some little thing maybe about the voice, but not that much. waxba ku jira codkiisa. Disturbing, Yeah, because codka lagaga duubay microphone-ka codka lagaga duubay ku xiran tahay hadba. Hadii uu yahay microphone sometimes they waxay isaga duubaan fadhigaana lagu duubaa taas ma duubis. Hadda let's say am studio-ga jooga. Meesha waxa ku jiro baashan waxa waaye arkaysan. I hope inaad si fiican u aragtaan. Baasha suuf waaye. Everywhere in studio ku xiran tahay. Maxay sameynaysaa codkii baxay dhac darbiga ku dhacayo. Hadii uu darbiga qaleel yahay ay ku way ugu soo celinaysaa. So marka tan maxay difaacaysaa codkayga darbiga ku dhacay soo celinay. Ma fahanti? So most of them they don't think about fanaanka marka aragtid ama qol lagu xiraayo ama studio meel loogu duuba code. Tamise codkoodii ayaa la ilaalinayaa si aysan wax u kala u dhaxgal u noqdo codka clean. Taas big no for me, my brother. Laakiin Suldan Seeraar, brother. To be honest, fanaanka moogtaasi inuu iska soo gado ka bacdi markaas ay ka gadmaysaa haysto. So I feel like asiga iska soo gaday kadib iga gadmaysa aniga. Guled Simba heesii so I was feeling it, but this one I don't understand. So no, that's a respect. Yeah. But I do. So who you got? I got Guled Simba. Aniga I got Suldan Seeraar, brother. Let's go to the round 3. dumna dilan deletiran dahla soo haydheero jogla midab dheere dol cadantay dakasisa lay dhaqaaday dol cadantay dakasisa lay dhaqaaday xumna deletiran Let's go to the Guled Simba. soo hargeeda dalxiiskeedu galbiskiyo arooskeedana وشيخي ورقور راجعي ولا قور هذا اللي هذا يبغى فرحة حمر كوكوبو نور الواعن قردادية Miradanga is a shirip thing, brother. Everybody wanna dance with me, see? Yeah, and the way they dance shirip kahaplo ciyaara jirto bogtay. So they forgot about this bride, Obviously. Everyone is hyping, brother. Yeah. It's a pride or everyone is hyping. Still, to be honest, I don't feel the vibe
sa ugu dareemayo midda ay Suldan Seeraar because the Suldan Seeraar one those erayado abwaanka qoray wallahi billahi marqaankaas lagu ma qasaarin that was some really good thing though marqaanka kala ani waa iga gadmatay to be honest waxa siinaya ay Suldan Seeraar ana Guled Simba yani sida anfa way هاي لك يوم هالسكرة هاي أنا يوم هالسكرة ويقد منك في عنو قد منك وكاقد من سوما and the shirip thing هرتو ما موينكو back in the days shirip thing the shirip صاحب باكو كعنا يا دتك جنيا لوجو ساري جرا برادا yeah that is a mad thing brother I think we should move to the round 4 the game is too tight are you ready Guled yes I'm ready let's go wadhamayso tanyari dhowrsan weeye ku dhadhabay intaan xag dhaqaaqay abjelaado qalbigu dhaawiciisa dhakhtar weeye ahuna dhayda manka wadhamayso tanyari dhowrsan weeye dhakhtar weeye ahuna dhayda manka let's go to the Guled Simba gacaliya xigalba tucan gaboobay garabkeena tuule nimcad badan gudogsada hoyaabale hele waya come on man one thing I love about Guled Simba you know waa fanaaniinta wuxuu ku jira aan isdhihi karo stage ka kala kicin karo because asigiya ku raaxaysanayo what do you expect adiga marka ku raaxaysanaysa heesto dadka ku daawanayaan reaction kaaga arkayaan adigana way ku raaxaysanayaan ma bandi so he has some type of you know wuxuu haystaa hypeness oo bulshadii meesha joogtay kicinayso صح waxaan dhihi lahaa bulshaawi yeah we can say that laakiin hees ahaanta labada hees ana waxa iga gadan Suldan Seeraar brother ereydaas waa li waaye so waxa siinaya again Suldan Seeraar what you got so sida sheegaysay Guled Simba was fantastic I love the way dadku yani inviting qof walba soo gelinaya qofka soo ku farxinaya and when it comes to music waxaan raaci lahaa at this part Suldan Seeraar yeah you know what telling you I feel so I can listen to them in the car you know in everywhere yeah that's without seeing the video you know yeah this video makes me more happy when I see Guled Simba and all that but if I listen without music without anything I feel Suldan Seeraar will hype the mood exactly yeah this is the last round it's a round 5 right now the game is as you can see 5-3 we should move to the last round or round 5 I hope you guys ready so let's go yamar dhabsho mandheera dhol margeeya hal mandheera dhoodir bunduq ya ka dhiiba waa dhabeelaya dhargeyn la dhabla jawhar yaa dharaara dhulka hooya si dhaqaaja ish wow let's go to the Guled Simba gacmadu yeesho isgargaara weligii kala hela gurbood gacmadu yeesho isgargaara weligii isla gooba liibintaana hele waya wayaaba hele wa hele waya wayaaba hele wa oh the shirip thing though I told you the shirip thing yes kukicinaya brother yeah he has some vibe though yeah fantastic but like to be honest at this moment I kind of feel Guled Simba I don't know he has some wuxuu haystaa saaxiibeen alla caayay personality wuxuu haystaa oo shacabka kicinayso runta marka laga hadlo you know fanaankana dee iska hees ma ahan shacabka ma kici kartaa waa that's the main thing heesiisa mostly oo live ka daa aragtidna iyo shacab fadhi arkimaysid most of them you know asigana one thing he's everywhere meel kastuu joogaa that means meel walba oo dinsana aragtid waa inaad kici kartaa oo tagtid so at this point waxaa siiyaan Guled Simba so you give him a point yeah let's give him a point I go over to Simba Heart of Simba was fantastic Allah so dadku kalkacini somebody singing to my wife like that yeah oh my god waxaan dhihi lahaa whatever I never knew you are Mr. Rodo
ساس مو مسير بلتا برادا مسير ما هسيدو هسي ماركن مرتي ودنا كدخدم تسيدو هسي بلتا يا Oh she was like brother I'm like is he marrying her you are the type of برسك خاطر brother صاحب برسا هذا لا صار كلا وقتها yeah I do understand هذا مركب فيديو كده وريا إيه ده حبيبتي سنة عمل فيديو أوفر مركب داوتدي أروس كود ما أنا هرت قصل كم حتة إيش كي إكسبلين تديك بحكوا دقاي والله بالله that's some serious thing though for me برامسيرك وحنيا والله ده some people oh هايستاجر موقت حتى وعلي كفتنا ودويسا like some people واحد جرو يا ألعب تسجيل تكو هايستو so a joke yeah I think we were just shocking yeah we were just shocking reaction shocking so what do you think who you got for this time I give my other friend the giraffe ninki dera oh Seeraar in the building aga Suldan Seeraar give it to the remix that's what I'm talking about yes congratulations Suldan Seeraar think this song was really good one anyway iga gadantay waxa way hees horo dhowr mar dhageystay ku soo ceesho doono waxaan rajaynaa Guled Simba other day 2020 way we don't see you the only thing kaaga jeedno waxa way shirib come with something different new style wax la imaa other real la jama badan de fanka waxay idin kaga tagantay inaad sii wadaan oo aad sii gaarsiisaan generation adikana wala jeeftaan wake up and come with something different that's the message I got you guys so I hope in a video ka wada hesheen halkaan ku soo gabagabeynayna you guys are the best and wixii aan iska dhaynana way was kaftan yes no hard feeling no hard feeling just the reaction my friends no jealousy no hate no dacayados only love child amore هاي ها ايوه حبيبي هذا brother halkaan ku soo gabagabeynayna see you the next episode